السلام عليكم أصحابتي qaaliga idin salaamina kastoo ku jirtaan maanta waxaan sameynayaa sirta ilmaha yaryarka oo alwaaxa ah dhinacyada marada laga xijiyo haddii aad beebi yar haysato oo dhinacyada marada lagu xijiyo oodan haysanin sida guriga uga samaysan karto aniga maadaama oo coronavirus lockdown lagu jiro meelaha dhan waxay xiran yihiin marka beebidada ayaa u sameeyay isbuunyadan ayaa ii taala marka wax hore ayaa ka sameeyay iga hartay marka isbuunyadan oo kale soo gadan kartaa fabric oo waxa waaye isbuunyada qafiifta waxaa u baahan tahay oo kale marada nooca rabta ku ahaato oo adiga jeceshahay oo sariir ah maqas iyo waxa waaye marka iyo dun iyo cirbad xarqaan yar haddii aad ku jari kartaa soo marka saddex qayb ayaan u gooyay waxaan ku cabiray sariirta geesaheeda inta rabo inaan ku ekeysiiyo adiga wax measure iyo yacni number iyo wax ma u baahnid baa qiyaasanaysa oo kaliya haddana waxaan soo qaadayaa marada ayaa hoos ku goglay saddexda jab ayaa dul saaray soo ma jeed sidaas ayaa u gogooyay saddexda jab marada ayaa dul saaraya marada ayaa markaa la keysiinaya maradan ayadana sidoo kale sidaas ayaa u jaraya marka inta ku cabiro ma u baahnid markaas ina ayadana haddii aad qof xarqaan tolo tahay oo taqaanidna beel waaye masha Allah easy ayay u jaraysaa si kadibna geesaha ayaa sidaan ugu tolay waa arki kartiin soo marka geesaha sidaan ugu tolo dhinaca kale ayaa u gadinaya suufkana ayaa ku aruurinaya marka tolayo xoogaa waa daalay hadduu xarqaan yahay beel waaye qofka xarqaan hadday geysatid dhaca hore kasoo tali kartid xarqaanka nooma dhaben gurigana miyuu oolin marka sidaas ayaan u tolay laakiin xarqaan uma tolo yaqaanaan okay marka waa dunta dhexda ay ku aruuriyay xirkay ras ayaa u sameeyay maadaama hadhow sarirta inay kula xirsid arabtid soo ujeeda qaybta goobaad waa taasaa dhac barkin yaris ee jab ka soo haray oo ka sameeyay oo madaxa hore sidaas ayaan ugu talay hadda marka dhinacyada kaleeto sida u tolo ayaa haddana nin tusaya sida naqti sarirta sida ka soo baxda ujeedin masha Allah ay u naqatay beebida mar dambe ma oonayso oo sarirta inta ku dhacdo sarirta ma nacayso soo sarirta ayadoo yar aad dalbaday way iga soo daahday inta la ii soo sameynayay marka sidaas waqti dheer ay ugu qaadatay haddii ayadoo umul ah oo kale seexan lahayd way la qabsan lahayd marka darbiyadana ay ku dhacdana way oonaysaa sidaas ayaan ugu sameeyay soo marka haddii aad hooyo tahay wax kasta inaad barato oo waa easy ay ku naqanaysaa oo gurigaada ku samaysan karto marka haddii aad helaynin looma istaagayso waa in adiga marka aad sameyn kartid marka meesha laga sameynayo maadaama ay xiran tahay aniga ayaan sameeyay insha Allah ujeedin sida ay ku soo baxday masha Allah qurux ayadoo la soo gaday wax ma ka barayso Soomaa doona cirbadan lagu talay ujeedin marka insha Allah inaad adinkana ka hesheen oo easy fikradan aad ka hesheen oo samaysid doonteen insha Allah haddii aad meel qabow joogtidna sidoo kale beebiga way anfacaysaa qabow dhan galayo waa ujeedin oo maleenayo masha Allah ay ku soo baxday saddexda dhinac sidaas xarkaan gadaal ayaa sidaan ugu xirxiray ujeedin doona cirbad la ku wada tolay masha Allah ay naqatane soo maalinkii la hadda beebida way ku jibtaa habeenkii ma oyso masha Allah ay naqatay blanketkasna waa busti yarka oo korka looga daboolay daartu gudaha wax kale ay u goglan kartaa adiga joskaada ujeedin oo maleena masha Allah ayada barkinta weyn caday soo barkinta waa iska dhaafnay soo sidaas ay markii barkin hore oo yar ay haysatay lagu sameeyay soo waa ka xiriga marka rabto dhac waa furaysaa waa dhaqanaysaa kadibna ku xirinaysaa ujeedin oo maleenayo masha Allah soo marka beebidaadan sidaas ay ku caafimaad qabtaa oo madaxa darbiga ku dhufsanayso ayadana way u helaysaa sir istiraxa masha Allah soo ujeedin gacan sida ugu furmayso masha Allah haddii aad ka hesheen like saara subscribe fiidiyoyaal badan sida uu soo geliyo insha Allah dhiirigelin ayay noqonaysaa aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhabaantiina insha Allah